Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada channelka Qays iyo Raxma. Waa walaalkeen Qays. Walaalayaal, waxaan rabaa inaan idinla wadaago dhacdo ka dhacday dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo gaaraya 35 ayaa xabsi loo taxaabay. Sababta dhalinyaradaasi loo xiray warbixin ayaan idinla wadaagi doonaa. Fariintan si gaar ah waxay ku socotaa waalidiinta Soomaaliyeed oo ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Fariintan waxaa waalidiinta Soomaaliyeed u soo gudbiyay wargeyska Tusmo TV wariye Cabdiraxmaan. Ku soo dhawaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي واني سلامي والدين الصوماليات ayaan si gaara barnaamijkan iyo fariintan ugu socotaa waa mar kale iyo wargeyska Tusmo Times iyo Cabdiraxmaan Mukhtaar waxaan rabaa waalidiinta Soomaaliyeed ayay fariintan ku socotaa si gaar ah barnaamijkan ama live-kan waxaan u soo galay waa ogeysiis aan bulshada dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo waalidiinta Soomaaliyeed aan gaarsiinayo. Waxaan ku suganahay jaamacadda gaar ahaan jaamacadda University of Minnesota, jaamacadda Minnesota area-da loo yaqaano Dinkytown ayaan ku suganahay. Toddobaadkii hore saddex cisho isku xigta Jimce, Sabti iyo Axad waxaa dhacday in dhalinyaro Soomaali ah oo da'doodu 15 jir, 16 jir, 17 jir, 18 jir, 19 jir ka ugu weyn uu 20 sano jiro, iyaga oo ka badan 50 dhalinyaro ah ayay waxay yimaadeen jaamacadda meeshaan hadda ku suganahay. Dadkii area-da jaamacadda ardaydii wax ku dhiganayay, dadkii ganacsiyaasha jaamacadda ka adeeganayay iyo qof walba oo ag maraan ayay waxay ku bilaabeen in ay la dagaalaan, inay gardaraystaan, inay maaragtay wixii ku samayn karaan ay ka yeelaan. Taas ayaa waxaa keentay in 35 dhalinyaro ah Soomaali ah booliisku ay qabtaan. 35taas dhalinyarada ah 7 ka mid ah keliya ayaa magaalada Minneapolis degan. Inta kale waxay ka yimaadeen xaafadaha suburbanka ayay ka yimaadeen. Taas ayaa keentay marka caawa waxaa soo booliis meesha taagan iyo baabuurtaas booliiska ah iyo amniga in la adkeeyo. Marka waalidiinta Soomaalida waxaan rabaa carruurtooda inay ka war doonaan meesha ay joogaan. waxaanu kaamarada meesha la dhigay, waxaa soo booliis ah area-dan oo dhan waxaa ka buuxa booliis dhar cad noocyo badan iskugu jira. Marka waxaan rabaa waalidiinta Soomaaliyeed maanta waa habeen Jimco ah, berri iyo Axadaba inay carruurtooda ka war hayaan meesha ay ku sugan yihiin iyo meesha ay joogaan. Booliiska waxaanu booliisa baabuurta meeshan yaalla ciidankaasoo booliiskii jaamacadda iskugu jira, Hennepin County Sheriffka iskugu jira, booliiskii magaalada Minneapolis iskugu jira ayaa kulligood waardiye ah. Waxa kaliya meeshaan loo buuxana waa dhalinyarada Soomaalida oo iyaga dadkii arday ha noqoto, dadkii shicibka ha noqoto, guud ahaan dhalinyaradii ayaa ka ammaan heli lahaa, dadkii ayaa ka ammaan heli lahaa. Marka fadlan area-dan Dinkytown la dhaho waa goob ganacsi, ganacsiga ayaa waa lagu ganacsadaa. Arday badan oo jaamacadda dhigta ayaa jira. Jaamacadda waxaa socda waqtigii qalin jabinta. Marka ogeysiiskan iyo digniintan iyo barnaamijkan live-ka waxaan u soo galay waalidiinta Soomaaliyeed. Fadlan carruurtaada caawa meesha ay ku sugan yihiin ka war hay, habeen dambe meesha ay ku sugan yihiin ka war hay, sidoo kale Axadda meesha ay ku sugan yihiin ka war hay. booliiskii jaamacadda wakaas booliiskii Minneapolis ayaa jooga, sheriffkii ayaa jooga, dharcad ayaa jooga. Dhammaantood waxa ay meeshan u joogaan, dhammaantood waxa ay maaragtay caawa iyagoo aad u tiro badan dharcad oo ku jira meeshan u joogaan. dhalinyarada Soomaalida ee gabagabeeyay goobtan
jimcihii iyo sabtii iyo axaddii la soo dhaafay inay ka hortagaan waxyaabaha la yaabka leh dhallinyarada soomaalida waxaa jira wiil ka mid ah 3 habeen oo isku xigta jimce sabti iyo axad ayay boolisku ay qabteen waa jimce sabti iyo axad 3 jeer oo isku xigta ayuu goobta isagoo dambi ka galay ay qabteen qabashadaas ay qabteen labadii habeen oo horeysa markay qabteen ay sii daayeen tigida siiyeen habeenkii saddexaad markay qabteen jeelka ayay in muddo wiigan oo dhan ay ku hayeen marka fadlan waalidiinta waxaa la rabaa carruurtooda inay ogaadaan meeshay ku sugan yihiin cimiladii ayaa isbedeshay waadarkii ayaa fiicnaaday samar ayaa la galay dhallinyaradii baabuur ayay iska wataan naftoodii halis ku yihiin dadkii kale halis ku yihiin marka waa ogeysiis iyo digniin aan u sheegay waalidiinta Soomaaliyeed inay carruurtooda u sheegaan inay taxadar dheeraad carruurtooda hadday guriga waqti dambe yimaadaan inay la xisaabtamaan weydiiyaan ma wax tigida lagu soo siiyey xagee ka timid yaa la socotay inta badan dhallinyaradu waxay sheegtaan magacyo been ah daa been ayay sheegtaan tigidii wax haddii la soo siiyo waalidka way ka qariyaan dhallinyarada Soomaaliyeed gabdho iyo wiilalba meeshaan way jecel inay yimaadaan laakiin iyagoo konton iyo ka badan ayay hal mar gabagabo iyo qas u yimaadaan marka waxaan rabaa inaan ku dheeraado ma rabo fadlan bulshada Soomaaliyeed qof walba oo damiir la damqanaya carruurteena heer waxay gaareen waxaasoo booliis ah dad volunteer ah dad badan in amnigii maaragtay iyaga daraadood magaaladii laisku sheego oo press release laga soo saaro waxaan soo geliyey wargeyska Tucson Times ogeysiis iyo maaragtay warbixin uu taliyaha booliska magaalada Minneapolis uu bulshada iyo waalidiinta Soomaaliyeed u soo diray oo arrintan la xiriirta marka fadlan carruurta laga warhaayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh